بسم الله الرحمن الرحيم. وهرين waxaan ka salaamayaa madaxda kala duwan ee marka halkan nagala joogta munaasabadan marka ay ku qalin jibinayaan ardayda marka Sidco College oo ugu horeeyo madaxda marka wasaaradda waxbarashada nagala joogta madaxda nagala joogta marka jaamacadaha sida Golis iyo waalidka marka halkan inaga jooga iyo ardaydaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka oo leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bacda salaad runtii goobtan aan maanta joogno waa goob ay ku qalin jibinayaan arday markaa xirfado kala duwan oo markaa cilmiga IT-ga ama loo yaqaano computerka bartay. maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay waa 20kii bishii toddobaad 2017 taasoo markaa dufcadda ay ka qalin jibinayaan ay noqonayso dufcaddii 34aad tiradooduna ay tahay markaa 300 oo arday oo markaa ka qalin jibinaya college-ka Sidco taasoo markaa ay barteen cilmiyo markaa kala duwan oo IT-ga khuseeya hadday noqoto qolooyinka qaar oo ardayda qaar ay markaa barteen basic programmingska sida loo yaqaano markaa koorsadan office programmingska halka ay qaar markaa barteen cilmiga markaa sare ee IT-ga oo ay markaa koorsooyin 1 year oo dibloma ay qaateen. sida la socono college-kan Sidco runtii waa college taariikh badan ku leh gobolka Togdheer hadday noqoto cilmiga markaa IT-ga dad badan ay ka aflaxeen iyadoo markaa marxalado badan soo marayay oo intaasoo marxalado kala duwan marba soo marayay waxba la odhan karayaa college-kan waa college ugu horreeyay marka burco laga hadlayo cilmiga marka computer laga hadlayo la keenay iyadoo markaa magacyo kala duwan markaa xilligaa isticmaalayay. haddii aynu yar soo koobno Sidco kuma koobna keliya un college waa markaa waa iskuulo badan oo isku xidhan oo marka la isku yidhaahdo Sidco Schools waa iskuulo markaa leh qaybtii hoose dugsiga hoose dhexe waa qaybo secondary ayuu leeyahay qaybtii college-ka ayuu markaa leeyahay. haddii markaa maanta xafladdan aynu fadhino ka qalin jibinaya markaa qaybta markaa college-ka markaa cilmiga markaa IT-ga kulley halkan maanta waxaynu la fadhiyaa arday badan oonu jecelnahay macallin waalidku halkan jooga iyo madaxda halkan nala joogtaaba inaan ugu soo bandhigno bal waxa ay barteen iyo koorsooyinkii ay qaateen inay markaa ay nala eegaan oo halkan ay ka arkaan. Sidco sidaan la soconno waa kelmad macnaha la soo gaabiyey kelmaddani markaa marka hore waxay ku timi waa kelmad cilmiyeysan oo marka kelmadahan Sidco laga hadlayo waa kelmad ku timi cilmiga markaa IT-ga ama computer ka hadlaysa oo marka laga hadlayo Sidco runtii dee waan ka xumahay waqtiga ayaa markaa madax badan halkan la fadhida oo markaa ka cod daaranaysa waqtiga aynu bilownay oo markaa yar dambeeyey. Sidco runtii sidoo kale waxa ay si gaar ah u hoos tagtaa jaamacadda markaa Golis oo runtii maanta dufcaddan baxaysa marka laga reebo dufcadaha dambe oo dhani waxay si toos u hoos tagayaan jaamacadda markaa Golis oo markaa aan leenahay markaa qayb aan markaa hoos tagno. sidaan la soconno baryahan dee college-ku marba meel ayuu markaa inta badan u guurayay oo dee guurisiisaa farabaday laakiin markii ugu dambeysay dee ardayda inta markaa arday maanta baxaysa joogtaa waxaa laga yaabaa inay ku kala dhameeyeen qaybo kala duwan ama goobo kala duwan laakiin goobaha imika ay markaa college-ku iskugu dawridanayo halka uu markaa imika uu yahay dee waxa weeye waa qaybta markaa halkan markaa daabshiil u dhow ee qaybta markaa ganacsiga imikana bangiga loo bedelay. kolley dee waxaan u malanayaa maanta inta halkan fadhida intay nala joogtaaba way ka dharagsan tahay magaca Sidco iyo waxa uu taagan yahay iyo college-kan waxa uu qabto in badan baa laga soo sheekeeyay
wax badan baa markaa dad badan ogyihiin maanta uma baahnaa sharxaad badan laakiin waxa arday walba ay cid walba ogsoon tahay in college-kan yahay college ku caana cilmiga markaa IT-ga oonu jecel nahay ardayda maanta markaa koorsooyinka hoose dhameeyey ee qaybta markaa basiga dhameeyey inay markaa qaybihii sare advanced course-ka ay ka helayaan koorsooyinkii markaa sare ay ka heli doonaan runtii college-kan waxaa la odhan karayaa mujtamaca imanka dee cilmigu inta badan waxa uu badan yahay wax walba waxaa soo galay dee cilmigii computerkii baa ku dhex jira meel walba loo dhaqaaqo waxaa laga eegayaa mar walba qof kasta inuu cilmigii computerkii ama maado walba ha barto ama jaamacad kadib ha dhigto ama caafimaad ha dhigtee cilmigan wuxuu noqday cilmi meel walba lug ku leh taasoo markaa aanu jecel nahay in cidda halkay nagala joogta markaa marti sharaftaysa ka soo qayb gashaya ama cid kaloo markaa college-ka dhigan hadday noqoto in aanu hayno koorsooyin gaagaaban oo aan markaa siin doono oo muddo yar ay ku noqon karaan cilmi kastoo ay doonayaan aan markaa ka caawin karno si gaara waxaan u sheegayaa ardayda jaamacadaha dhigata waxa weeye qaabka wax u dhigtaan waxa laga yaaba waqti dheer bay u baahdaan inay wax ku fahmaan ama waqti dheer bay dhigtaan laakiin college-ku wuxuu ka caawinayaa si yaroo gaaban oo shortiya oo muddo yaroo markaa gaabana inay markaa kooraska ay doonayaan cilmiga markaa IT-ga oo noocay doona ha noqoto sida koorsooyinka aan bixinna waxaa ka mid ah programming-ka oo qofku noqonayo dee sida uu programyada loo sameeyo koorsooyinka waxaa ka mid ah network oo kale halkan dee kuma soo koobi karno mid iyo labaan idiga sheegaya kolley waqtigaa iska markaa ina riixaya waxaan halkan mar labaad iyo mar saddexaadba aan uga mahadnaqayaa marti sharafta kala duwan ee markaa halkan igala soo qayb gashay waalidka ardayda runtii sida waqtigooda qaaliga na soo siiyey goobtanna ay tahay goob aynu kula wada farxayno ardayda maanta qalin jibinaysa ee markaa ka baxaysa college-ka oo tiradoodu dhan tahay 300 oo markaa arday oo kala bartay xirfadaha kala duwan ee computer aad baad u mahadsantihiin